sababtuna waxay ahayd coronavirus oo awaltii hore dhaqaalaha aad dhulka u dhigay ayaa mar kale dagaalku wuxuu noqday baasiin ku sii shuba dhaqaalihii dunida ee sii leecayay taasina waxay sababtay wadamo badan oo Afrika ay ka mid tahay iyo Asia iyo qaybo ka tirsan Europe in gaaskii iyo cuntooyinkii daruuriga ahay ay qaali noqdaan taasina waxay sababtay inuu noloshii dadka ay saameyn ku yeelato dagaalkaasi waa gartay markaan eegno dhaqaalaha Europe insha Allah socono waxaa jirtay in wadamo badan oo Europe ah oo Jarmalku ka mid yahay gaaska uu saameyn ugu yeeshay marka si gaar markaan u eegno saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay Europe dhaqaalaheeda muxuu yahay ka taaban karnaa Europe waxay ahayd isha ugu weyn ee gaaska dabiiciga ah uu Ruushka u dhoofiyo sababtuna waxay ahayd inuu Ruushku ku hanjabay inuu ka jari doono yani gaaska dabiiciga ah boqolkiiba 70 gaaska Ruushka waxa qaata Europe ayaa qaata taasina waxay sababtay inuu saray u kacay qiimihii gaaska Europe xilligan kale waa xilliga ugu daran ee qaboobaha uu ka jiro qaaradda Europe taasina waxay sababtay in wadamadii Europe ay hadda ay doonayaan inay ila kale oo dhaqaale ay raadsadaan sababtuna waxay tahay Ruushka la isku ma halay karo mana ahan saaxiib dhab ah oo yani gaaska dabiiciga laga qaadan karo waa tahay markaan Soomaaliya u nimaado insha Allah socoto Soomaaliya xilliga dagaalku bilaabanayay waxa ka jira abaaro daran iyo dhibaatooyin kala duwan saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay dagaalkaasi Ukraine Soomaaliya dhaqaalaheeda Soomaaliya dhaqaalaheedu saameyn xoog leh ku yeeshay because Soomaaliya dhaqaalaheedu dhan wuxuu ka tirsan yahay waa importiga waxyaabaha aan dibadda ka soo dhoofsano Soomaaliya laba isku darsantay oo ah abaare ka jiray Soomaaliya iyo colaado Soomaaliya ka jiray iyo dhaqaale xumadii COVID-19kii lagu daray dagaalka Ukraine taasi waxay noqotay waxyaabihii shidaalka mararka qaarkood inuu sare u kacay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho laga dareemay qalabka dhismaha kamida qamadii faraha badnaa ee Ukraine laga keenay ayaa kamida meelaha sida aadka oo u saameeyay dhaqaalaha Soomaaliya oo sektorka ugu muhiimsan ahaa sektorka in wax la soo dhoofsado ah maadaama aanan ahayn ummad wax soo saar iyo warshado leh waan gartay markaad fiiriso soo lama dhihi karo Soomaaliya waa la iloobay oo adduunku waxa uu diiradda saaraya dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka soconayo oo Soomaaliya gargaarkii la siin lahaa waxa loo weeciyay dhanka Ukraine taas ay keenayso in saameynta ugu weyn oo ku yeesho Soomaaliya taas sina waa la dhihi karaa sina lama dhihi karo sina waa la dhihi karaa oo dhaqaalihii Soomaaliya la sii jiray dagaal haduu dhaco isbedel dhacaya taasina waxay sababtay in dhaqaalihii dunida hoos u galo oo deeq bixiyaashii ama dadkii donoriska ee Soomaaliya lacagaha sii jiray inay ka gaabiyaan taasina waxay sababtay in bartamihii sanadkan 2022 Soomaaliya mar halis u gashay inay macluul daran ku dhufato laakiin Ilaahay naga badbaadiyay marka runtii Soomaaliya kaliya aan Afrika oo dhan ayuu saameeyay laga soo bilaabo Masar ilaa Central Africa bariga Africa meel kasta dhaqaalaha ama hadda noqoto gaaskii ama ha noqoto shidaalkii ama ha noqoto waxyaabihii beeraha iyo electro dhamaantood uu saameeyay si toos ah iyo si dadbanba waa gartay markaan eegno Mustafa dunidu maxay ka baran karaan dagaalka Ukraine ee sanad jirsaday iyadoo hadda aysan jirin xal hadda lagu joojinayo dagaalkaas dunidu waxay ka baran kartaa kow in yani dagaalka Ukraine uu noqdo ififaalaha hadii dunidan awoodda hadaysan noqon awood isku tanaasulo ah oo dunidu khatar ku jirto taasina waxay sababi kartaa wixii Ukraine ka dhacay magaalooyin fara badan oo Ukraine ah oo magaalooyinkii dahabka oo aad u quruxda badnaa ayaa hadda waxay noqdeen magaalooyin lama degaan oo saxara ah because hubka la isku adeegsanayo wuxuu hub aad u culus iyo dagaaladii la yaqaanay oo dagaalkan dagaal ka duwanaa maadaama dunidu tiknoolajiyada casriga ay hubka lagu adeegsanayo aysan ahayn dagaaladii caadiga bini'aadamku isku wajihi jiray ay yihiin dagaalo aad u isku adeegsanayo hubab kala duwan haddana dhulka lagu dagaalamayo uu yahay dhul baraf oo qabow ah taasina waxay sababtay kumanaan qof inay naftooda ku waayaan kumanaan qof nolosha ay ka cararaan taasina dhaqaale burbur ay dunidan ku saameyn ku leedahay marka dunidu waxay ka baran kartaa kow wadanka soo awood leh inuu dhexdhexaad ka noqdo dagaalada Ukraine iyo sidii loo qaboojin lahaa dadkan walaalaha ah ee siyaasadaha kala irdhowday waan gartay dadku waxay isweydiinayaan maadaama dagaalka Ukraine uu daba dheeraaday sanadkii labaadna hadda lagu hala sii galay mustaqbalka Ukraine sidoo noqon doona mustaqbalka Ukraine wuxuu noqon doonaa saan aniga qiyaasayo Ukraine way ku biiri doontaa aakhirka NATO sababtoo ah Ruushka aakhirka waxa lagu qasbi doonaa cunaqabateynta adag ee la saaray
inuu gorgortan la galo wadamada waaweyn aakhirkana waxaad arki doontaa Ukraine oo cagaheeda dib u